ugaas maxamedow اه seeta ugaaska nagow نور ما فهمنا سيتي aad baa u fiican walaalkay seeta هذا ما فهمنا شباب عروتي حاس كور waa fiican yihiin barwaaqo walaalkay هاي ee waran mar waxa kula hadlay ma garat ها شعب قادري ما قرنا سبع ما قرنا maasha allah ugaaskii jira allah kaan ina adeerow ها waxaan ku soo wax kale kuma soo wicine ها waa ogtahay oo maalin dhaweetaa xogaha Nairobi dekisto ma qaande arin xagga nooga imaad inta ka yara xanaaqnay baan aan xogaha gur Swiss tagay oo aan saxaafada ka hadalnay wax kale uma naahanay de kulay danahi tolkeeni iyo dadkeeni قبل ما صحنا يا جدي قولي قلت يا جدي هلا ha ugaas وان قرت عبد الشعب قبراي marka de kulay ugaas oo horta markii hadii xaqiiqada rasmiga laga hadlo runta laga hadlo walaalkay horta dhulkeena runta hadii la sheego waa dayacan yahay oo maanta wax horumar iyo wanaag weyn oo maanta ka taagan oo lagu faani karo ma haysan talabaadii kale ayadoo sidii ahayd baa saan warka maqalnay waxa lagu soo daraa la yiri ma aqaan ma liibaan baa la yiri mise ma aqaan waa la kala qaybiyaa la yiri anagoo marka horeba xogaha waxtar la'aan tabanayne oo hoos u guuxayne markii naloogu daray gurra haddana xagga la raaciyay anagoo furkan turno waa xanaaqno waxaan nidhi nama qabat gruubkeeni Nairobi waan isu tagtagnay sheekh nuux ilaahay ha noo soo caafiyay asaga aad iyo aad buu xanaaqo wuxuu yiri ilaa wax walba ha qaadatay kama harayno dhul gurro kuma dhaafeen Ismaaciil Xasan ilaa markiisa de markii shirkintu soo dhawaanay ka hor wuxuu aaday cumri asagoo cumradiisa joogan la hadalno wuxuu yiri talow wax alla wixii uu tal yaani dhul gurro difaaciisa tahay in waxba kama irmaanay gurraana anaga de marka qadiyada aan u hadlayna waxay ahayd magacii gurro talabaadee kale uga soo waday runta la sheegay caasimadeena maanta dhaamolo wax maanta horumar iyo wanaag maanta sida kililada kale ay u dhisan yihiin ay u dhisantay malaha abihi gurra ee maanta xagga joogay ee maanta ugaaskii ahaa ee meeshii ugaas gurano taagana waa adiga iyo siyaasiyiintanadii adinkiina de ma aqaan de kolley ani intaan hadda maanta intaan dhaamol intaan imaaday siyaasi aan la hadlay oo maanta arrin gurra ka weydiiyay ma jirto dhaamolona laba jeer baan tagay labada jeer oo tagayna waa og tahay wax kale iska dhaafe biyaha ay cabaan warbay cabaan ay ka soo dhandhamaysa kaadida xoolaha de marka waxaa la yiri maantana ugaaskii iyo siyaasiyiin fara badan oo gurana arrintii Nairobi ay beenanayaan waxay ka hadleen baa la yiri maanta idaacada oo ragaasi yani waa niman mucaarad ee niman tolkooda ka amar qaata ma aha yaa shirka laga yiri baa la yiri ani markii maqlo waxaan yiri bal kulay ugaaska waa abaheene danta gurro iyo nolosha gurro maanta inuu yani wanaag u horseedo mooye yani inuu ka hor imaado ma ahe maanta kililka shanaad yani gobolada kala barwaaqada ay haystaan gurro ma haystee bal ugaaskii aabaheen ahaa aan la hadlay lambarkiisa hal isiiyaan inuu sidii aan kusoo qaato kugu soo wacay عروتي قبل ما يقول فلان هرت بقولت أنا فرت يقول فلان وكا قارسين وقت إن شاء الله لكن حويا سيدا حويا هذا لو هذا مهم أوي صوبته تاي ودقائقان جيتا وإسلام الدين في الصومال ترى نعم markii arinta soo yeeday cid maqasho waa anaga ahayd cid xilka saaranta waa anaga cid in lagala xisaabtan lahaa waa anaga cid in wax laga weydiin lahaa waa anaga cid nala soo xiriirta ma laha yaraatay adiga had ilaah la xataa caawa igu ka horeyso نعم caawan waxaad ii soo wacday dee waaskii waa idaacaddii iyo warbixiyey baad ii soo wacday taabaad inaad hubsatid ama aad bal see wax u jira inaad tiraado baad iyaad ii soo wacday نعم waxa weeyaan horta deegaanka waa run waxa weeyaan waa loo dhashay laakiin
mas-uul buu leeyahay oo shalay loo dhiibay ilaahayna kala xisaabtami bulshada dantoodana haddii uu maanta dantiisa gaarka ay ka eegtana ilaahay baa taas ka ciqaabaya magarat nacam anaga shalay baan xajka ka imaanay oo baytullaahi baan ayaan soo aragnay soo taabanay waxa weeyaan ummadanada waxa dan waa unba aniga daniya ummadanada markay ay wixii iyaga ay u cuntami aniga iyo cuntamay magarat nacam hor laakiin intaysan arrimahan dhicin ka hor aflagaado badan iyo cayb badan iyo waxa weeyaan hadallo aan munaasab ahayn ayaa kasoo yeeraya dhinaciina waxaana horta waxa aad aan iskaga aamusnay waay markii hore ka dambe waxa weeyaan hadallo aan munaasab ahayn oon jidkeeda lahayn baa lagu hadlayaa oo maxaa kamid ugaas waxa weeyaan laakiin taa aflagaado cad baa jirto oo maxay ah waxa weeyaan taas way jirtaa waxa weeye wax kasta way muuqataa ma gurra la aflagaadeen maya ma gurra la aflagaadeen anagana la aflagaadinaya anaga muslimiinta khaasatan ana la aflagaadinaya oo la leeyahay dhulkii wuu gatay sidan weeyaan inta badan waxaa dadka hadda kiciyey in ugaas maxamed kicitaankiina iyo hadaladiina ina wax lagaga qabanayo awgeed bay iga u ekeed ma garatay haye ma aheen mid dana gura lagaga hadlayo uma eko marka laba adigana waan fiirsanayna oo honkebil waan arkayna oo aniga bandhiga ku arka wax dad ii sheega ma aheen nacam hadalkaadan uu iska gaabnaa oo nin uun dhahayo danahanaga iyo dantanada anaga dabada jirin aan isku xirnaada ayaa muhiima si nin weyn u hadla ayaan u hadashay khayr allah ku siiya marka nin walba horta wuxuu yahay in la dhigan baa fiican mooyaane dadka in uun xaar laba mariyo waxa ka fiican in dadka uun kii qaldana loo sheego kii waxa weeyaan wanaagsan lagu taageero ra'yigiisa baa qurux badan waa run anaga aan xumaano ama meel kale kasoo jeedno ama aan si kale noqono shalay unbay gurro noo caleema saarteen anaga ayaa gurro ayaa usha noo dhiibta anaga intaan imaanay cambaign aan sameynay gurro kaaliya caleema saarteen aan dhihinay oo wax soo arkirsata weeyaan waa run marka waxa weeyaan dhinacan artayaashii baa tihiin aniga hadal adag idima quurayo oo waxa weeyaan hadal sidiis in loo khayr allah ku siiya ugaas waxaan ku yidhi walaalow horta hadda maanta waxaa badanaa nin walbaba uu ka qaylinaya waa danta tolka iyo dhulka mooye ee maanta cid yani waran ku taag dhehaysa ma laha maya marka cabdiqaadir oo walal aan ku dhamay walal raalli ahaa mise waad yar degdegaysaa maya caadi waa hadalka hadda shaqo kuma jiri waa free baane marka walal waxa weeyaan markii arrintaas soo yeedhay cidda ka dhidhisay waa aniga aheyd degmooyinka saddex gobol baa lagu kala daray cidda intay waxa weeyaan bakooradeeda qaadatay cimaamadeeda qaadatay gambar gaaban gambar dheer ugu fadhiisarta waa aniga nacam oo ah in ay saddexdaa degmo israacaan danahooda khasaanadan laga taliyo waxa weeyaan aysan noqonin mid la kala gegeyin aysan noqonin ciddii ka talisarta waa aniga nacam hadda laakiin hadallada say usoo baxayaan waxay ii muuqataa inayaan ku qaldanaa inay arrintaa dhacdo so waxa lagu faraxsanaa umalarka ayaan u malaynayaa saddexda degmaba in saddex gobol lagu kala dara ayaa aad loogu faraxsanaa umalaynaya hadallada si loo dhigay yaa ku faraxsanaa waa lagu faraxsan yahay oo dhammaan wixii jooga aagiina iyo wixii waxa idaacadda ka hadlay iyo wixii waxa weye arrinka wadoo dhan way ku faraxsan yihiin saddexda degmo in la fara diro oo gobol lagu kala diro aad ba ugu faraxsan baan filaya oo saddex gobol bay raadinayaan baan umalaynaya hadalka sidaan u qaata aniga marka waxa weeyaan cid aniga ila soo hadasho wax iweydiisa ma laha waxaan ka ahayn sheekh nuux oo waxa weeyaan odayga reerka ah oo isagan iska xanuunsanaa in badan baan wada hadlaynay in badan baan arrinta ka doodnay si aadna wixii aan meesha kula kulannay waan u sheegnay waxaan dardaaranka ugu dambeeyaan isdhaanay kaala imaada xukuumaddii la hadla qurba joog ahaan oo la hadla deegaanka in odaarsan ahaan oo la hadla waxa weeyaan anigana waxa weeyaan qaabkii aan idinkugu balin lahaa uga u wada hadlaydeen baan samaynayaa arrinka halka aan ka ambaqaadna halkaa wax ay maanta ay ka qoyanta ma lahae halkaan bay ka fududta aan ku yidhi nacam waayahay buu yidhi waayahay baa ku yidhi hadda ogaaso wuu soo hadlay hadda ogaaso horta kolley yani waxaana laga maarmaynin oo imaan doontaa qurba joog gurra yar iyo weynkii dibadda kuwa jiliya kuwa nairobi jooga laazim waa la imaan dalkii maya hal imaado marka deegaankii waan joognaa anaga laakiin waxaan rabay marka ayaga hadda aad safaaradda tagayseen ood adinka aad la kulmayseen iyo marka adiga aad idaacadda aad ka hadlayseen
أي أنت هذا أرمها ودين هل مالين ما استراهدين ماشي مسؤول بوليه أضي بوليه أن كتر عينا مرة استراهدين متويدين خير الله كسي وارونتا أن كل شيء وقاسو مركتا أن هل مركا أن كاشك بحيو وقاسو هرتا دي رونتا للشيغا ما أنت هرمودكي قروا وأديك إيه رجع مسؤولين تحلك نوجرو ما نيجي ما أنت سيارة لوري جاي دقيسو runta hadii la sheego deegaanka ka tagaan taa ka bixi maanta kasar laakiin wad hay runta hadii la sheego dad walaal baan nahay oo dhal yaan nahay hadii runta la isu sheego ugaasow dhulkeena sida uu u dacayan yahay iyo qaabka uu yahay haddaan runta sheegna dhaliil weyn baan weliba ka tabanaynaa raggii xildhibaanada ahaa ee xilka noo heeyay iyo adiga ugaaskabo walaalkeen baa runtan ku sheegaynaa waxaan kaaga tabanaynaa idinka maxaad qabateen marka annaga waxaan qabanay kullayba dalkii banaanka aan ka joognaa adinkaan idin dhiibnay in horumarkii hal jibka xataa waxaa uga dhisan waayay idinka idin dhiibnay maa meesha wax la isu dhiibay mala deegaanka sideedaba cid kastoo xil baa ka saaranay hal wax aad kusoo kordhiseen maxaa jira idinka aad keenteen idinka dee waa og tahay oo dhagax dhigii ugu horreeyay masaajidka raha la dhisay la yidhi nairobi ma laga bilaabin taa waxa weeye shakhsiyaal gaar ah bilaabay oo maanta aan dhihi karo hebel ma jirto shakhsiyaal gaar baa dhibaan waa ina matalaan nairobi bay matalaan kulligood magaca nairobi baa lagu dhiibay iyaa la isku wax gabani maya de ogaad isku wax gabani maya isku dhac gabanaya hadda mid bay taagantahay ma way kala bixi way adika xagga ka safnay anaga meesha taagan baa anaga waxaan joognaa deegaankii baan joognaa dadkii baan dhex joognaa dadkii way ku faraxsan yihiin arrinkana waa arrin aan go'aan ku gaarnay xukuumadda aan ku gudbinay haddii idinka go'aanka idinka marayso dad kala safan aan noqono laba gurro aan kala noqono oo waxa weeyaan idinka xagga ka safta aniga xagga ka safan waxaan kala qaadnaan leenahay markaas annaga maya gurra ma kala safanayo gurra waa dantiisa waa hal yaa wada jirkiisa waa hal dhulkiisuna waa hal gurra meel uu ku kala baxaya ma laha ugaas gurra dan baa laakiin idinka kala dirayo annaga waxaan ku kala direen oo ilaahay abuurtay ma laha mid ugaas midaan ku sheegi gurra maanta hadii halaan ku sheeg dhasheen saada la magacaabay markii hadda hadalkiisa soo qaadaysan waa wax soo jiray halkan baa loo soo maray aqoon badan baa jirta dad badan baa ku barakacay dad badan baa ku hanti waayay gurada mali goorbaxso wax hadda u imaaday sababta laga dhigteen maxay tahay khayr Allah ku sii ugaas hadda waxa imaadaan ku sheegi ugaasow 23 sano buu maamulkan dawladda Maladinaaw ay dalka ka hana qaade hakahana qaade nin walba xaqiisi iyo baajadkiisi siday tahay baa loo gaarsiiyo loogu hagar baxayo dalka oo dhan waxa laga dhigay dhala miiran ilaahan kugu dhaartay maanta gurro hadii runta ilaahay laga hadlo oo ilaah laga baqo isbitaalaadkiisa waxa la gaaray heer inta dhaamal inta ruux laga qaado jibril lagu soo daaweeyo aaway dadnimadii gurro iyo xaqi gurro iyo baajadkii gurro xaqi aad marka inta nin gurro inta la qaado inta daawo loo waayo jibril lagu daaweenayo مسؤولين بعد هذين مسؤولين بعد هذين قروا وحولي يعني لا ممكن قادنا إذا صرت هالمرة دقيسو واحد يوديسي دي أنا صرت لبا وحليهين لبا مسؤول بليهين مسؤول لقمات مسؤول سياسات بليهين نعم أنا إذا مسؤولية هذا كاس لين ما الدولة دي كحرة oo waxa weeye dawladda maanta bishaar ka qaatay oo mishaari ah oo digdiga guriga ku leh oo digdiga degan oo gaari dawladeed wato intaba mii waxa weeyaan mishaarkayga iyo waxa weeyaan waa hadalka gurra uu ku hadlo maana mishaari ah oo aan qaataa ma garan laakiin wada xisaabta markay noqoto sidii aan deegaanka imaado taas waa ragnimo laakiin banaanka laga hadlo maya waa imaanayna ballan iyo axdi weeyo gurro oo guuraya yar iyo weynkii wixii qurba joog ah way ku imaan gurrana dhulkiisa horumar hadduu leeyahay oo wanaag iyo sharaf la gaarsiiyey oo baajadkii gurra 23 sano ay dawladda bixinaysay haddii dhab ahaan loo marsiiyey oo gurra sali baarkii uu dhab ahaan u haysta qurba joogtii iyo dawladda dhexe oo wada socotaan idiin imaanayna mana la harayo cid cabsoonaysa oo joogaysa ma laha kowdhe ma maqashaa talabaadana ku sheeg ugaas waan ku sheegi soo dhaweynayo anigaadii idinka hormaanayo anigaadii diyaarinay laakiin af laga hadlo waxba ma tara ugaas waa soo soconaa aniga hadda runta sheegnaa waa soo soconaa waxaana soo dhaweyn dawladda dhaxaa baan ka qaadanaynaa mas'uuliyadda nagu soo dhaweysay ilaa dalkan ay gaarsiiso
ما مقشع هي marka cabsi waa heesay ka anaga tahay diyaarsanayna qaabkan ku diyaarsanaba cabsina heesa ma laha ciidan ka baqayna mala tol baa noo jooga dad baa noo jooga ehel baa noo jooga abayawgeen baa jooga ehelkeen baan ku soconaa mucaaradna mana weligeena shufta mana noqon haddana ma noqonayno talabaad ee kalmina ku sheegaas dimay damaanadana la qaaday marka liiday qaabka hadalka u dhigaysid inaad u tafsiirsataa sababta damaanadana loo qaaday maxay tahay Itoobiyaanimadaada maad aamintid waan aaminahayaa Itoobiyaanimada dawladda dhex waxaan u hoosmaanayaa Itoobiyaanimada waa ma talabaad uga waxaan ku sheegay damaanadana ilaa meeshaan joogna inaan la qaado marka leedii damaanad ma dhihin waxaan ku iri annaga iyo dawladda dhex oo wada socona ba carra gura soo dhaxmareenaan ku iri cid kale oo qaadaysa ma laha marka guddiga tiibe ka dhiganta guddi fadra bahasha aw Afrika aan loo soo diray annaga guddi annaga guddi waxaa noqonaynaa qurba joog oo gurro oo dhibaato sheeganayo tolkoodii 23 sano horumarka la gaarsiiyey inuu jira iyo inuu jirin ma rabnaa inaan dawladda dhex tusno haddii maado insha Allah insha Allah hada waa fiicna walka talabaad kalmidaan kugu dir walaalow gurra ma ballamayo hadda ma yani ma la soo yeerayo ma la shirayo mise lama shirayo oo dhaamolo iyo dhulkaas war ma ka jira yeeritaan jira ma laha yeeritaanka anaa iskugu yeerayo gurro ma ku soo joogo iyo kan dalka joogo anaa iskugu yeerayo kaas waxa weeye aniga ka sokan aniga cid u yeeri karta gurro ma laha anaa gurro ugu yeerayo gana iskale gobishana iskale geedkana iskale siyaasiga oo hadal haysana kursiga geedkana soo fadhiisanayo maxaa tiri gurraha kursiga siyaasiga oo hadalka ka shaqeeya anaa soo fadhiisanayo geedka gurro anaa u yeerayo gurro sida yeeri karo gurro oday buu leeyahay gaas buu leeyahay geed buu leeyahay gobol buu leeyahay khayr Allah ku siiyo waa khayr Allah ku siiyo adaa noo bixin waa runta ugaadka dhigaata ugaasow laakiin hala ku sheego walaalkay ilaahan kugu dharshay ugaasow gurra maanta waa ogtahay caasimadeena gurro waa halkee waa taqaantaa igu celin hay dhaamolo mate haye in adeero ilaahan kugu dharshay dhaamolo maanta horumar ma leedahay oo tuubooyin biyo guri walba ma ku xiranta mise kuma xirno dhaamolo horumar bay leedahay meel afar loo sax bay leedahay aanadii bay leedahay marba ka tagayso waxa weeyaan biyo shareemada 4 milyan ku bixisa ayaa laga sameeyaa kulli aajin igu celi ugaas waxa ka dambeeyay weeyaan inaad igu celi hal mar waxa ka fiican xaaladda dhabta ya hal mar igu celi maxay leedahay tiri waxa weeyaan horumar dhab ayaa ka jirto badan baa jiro dad nabadgelya jiro fikradooda iyo ra'yigoodana dad nabadeedaya oo waxa weeye dowladda dhexe iyo dowladda deegaankaba miisanta gurro yahay meeshu ka soo jeedo labada garanayo weeyaan khayr may waa waxay leedahay biyo shareecada loo sameeyaa hadalada xagga ka dhig ugaas halaan ku warsan dhaamolo maanta biyaha cabto maxay yihiin war baa mise waa tuubacadii cabtaa haya xag u dhig waay haye maya ma war bay cabtaa mise tuubacadii cabtaa ugaadkenow taa sidii horta maya de hal bes idhe maya ugaas hal bes idhe khayr Allah ku siiya aabeeda tahay hal besa ma war bay cabtaa mise tuub bay cabtaa ama tuuba idhe ama war idhe ama war xag iska dhig haye fikir adiga hadda waxba hadalka ku sii fogaanin imaada waxba hala ku sheegi dalkii horumar baa jira tirmood waxba la qabtay wax lama gaaro arrimo tiri dhaamolo caasimadeena weeye ee biyaha laga cabo waa ogtahay aniga 2009 waan tagay guriga cali gaas baa ugu horeeyay guri aan biyo ka cabo biyo war ah oo kaadidii xoolaha ka soo ureysa la ii dhiibay markaas baa cali gaas waxaan ku war cali gaasow dhaamolo waxaan aqaan jiray tuuba ilmacaan oo ishii dhaamolo la dhigi jiray biyaha macaanida maxay tahay wartaayr wuxuu yiri tuubadaas iska dhaafay warkeeda uu dhamaaday war baan cabnaa haddaad cabi karta cab waxa weeyaan nolosha u kaad ugaad nolosha joogo maya nabadiid ma jirto oo meelaha fadhiya hadalada oo kale oo ugaad ani nabadiid ma ihi laakiin nolosha tolkeedna way naga dhaxaysaa haddii qadiyada tolka la yiraahdo nabadiidnimo ayaan la dhihin maya ma hadde waxa weeyaan qaabka loo hadlaysa waa qaabka hadda qoladan ubada oo meelaha joogto iyo hadalada ay wadaan baa ayaa idin gurra weligi halaa kuu sheegi ugaad runta haddii la sheega gurra weliga ubana heshiis lama noqonin mana hoos tagin balaayo uu uba u noqdana ma laha balaayo uu hoos tagana ma laha hadda iyo dheer yana gelin biyaha waaba imaado aqaanaaye maya tuubadaas ma jirta mise ma jirto
ka gudub dhaamolo ilaa iyo goro baqasa inta u dhaxayso wada isku xiran oo la isu mari kara ma ku taala oo baabuura hala yaraho oo ako qabu soo shaqaa tiradeen toona $4,000 ayaa jid lagu dhisaya maya gurra $4,000 jid uma dhisaysa gurra miisaaniyad buu ku leeyahay dawladda budget buu ku leeyahay dawladda budgetkiisa wax u dhisayo budgetka gurra jeef dad ma galayo ugaas dhageyso gurra budget buu leeyahay jid laan wala saxiib gurra dhaamoltu jarati maamulka ma hadda weergal ugaas hadda yaan ogaan hadalkee ugaas fiiri bal haya habeen wanaagsan insha Allah inaad ma yahay jirin halan ku sheeg ugaaskeena waa beena tahay halo hayo waxaan ku dhahay marka jidka hadda la ansixinaya maamulka hadda ma bilaaban adkana ku darin kooda laakiin waxa weeyaan xaqiiqatan waxa weeyaan hada laakiin ku dirnimo wax ma ogro oo dan u leedahay malaha soo hadda dan uma laha dan ma yaadeer waaso anaga safarada waan tageena xaqeena ugu tageena xaqa tolkeena 23 sayna ugu jirna waaso kuma jirto ii sheeg maxayna ugu jirna walaalo hadday ku jirto waan hada keenay maxay ya maxaa laga qabtay waan hada sheen hadda ma deegaanka Soomaalida degmooyinka aan leeyahay saddex degmo waxay hoos baan deegaanka Soomaalida waxa weeyaan ugaas hal maalin bes wax laguma qabto moogto annaga waxaa la rabaa cadeen baan la imaanaynaa gurro 23 sano uu deegaanka Soomaalida hoos tago hoos jooga 23 sano gurro budget buu lahaa miisaaniyad buu lahaa waxa ya waa dad waxa weeyaan xukuumad iyo waxa weeyaan iyo kala dambeyn iyo deegaanka Soomaalida iyo nidaam sharciyeysan ku dhisan هذا المشهد كان في سفارة أفغانستان اللي في سفارة الله لا يقبلها ملا. وقاس هلا كل شيء. وقاس. يروح لو قبته جرب بيان سايا مهمة. وقاس. كم مرة تحاول بايسان حاجة سنتي. وقاس أنا قاعد أروح الشيخنا حقيقة كهذا ما أنت ما ملك كل الكسنات جرب وضيعي. وين وضيعي وحرك وضيعي لبعتني سدح سنة وضلك سمام الكجرة. madaxweynaha markii uu hataa kormeel ku sameyn jiray dhulka Soomaaliyeed gurro uu soo gaari waayay wuxuu soo gaari waayay wajid la'aan nin maanta mas'uuliyadeena iyo xilkii noo hayay oo hal maalin ka dhanqaday ma laha war gurro maanta dhibaatada heesa aan kor uga qaadna jid la'aanta heeso waxbarasho la'aanta heeso in biyo la'aanta heeso hadda duutaga maxaa dhigi hadda duutaga maxaa dhigi kee tagi asaga naftigii madaxweynaha tilka deegaanka Soomaalida hadda uu tago maxaa dhigi hadda uu tago waxaan badheena aan ku heesanaabo 23 sano maamulkaaga uu dalka ka jiray gurro uu dayacan yahay oo xaqiisii iyo miisaaniyadiisii budgetkiisii sidii la rabay looma soo gaarsiinin meeshu maraa la rabaa لا كاش waxweeyaan dad kula xisaabtama loo yeesho meesha fadhiyo waa u imaanayna odayaasheena oo sheekh nuxuu weyn yahay Ismaaciil Xasan ku xigo gurrana la socda qurba joogti Mareykanka waa ka dhacsan fiina balimaada halkaas sarkeenay qurba joog waxaan galay waxaan guduma ka ragshad ragshadu runtaan ku sheegay taas annaga hala ku sheeg ugaas dadkii mucaaradkii la xirayay baqay fiiri dadkii mucaaradkii la xirayay baqay man annaga gurraana wala yaqaana واتري وعاد ترى سيدنا نبديد كانوا هالي سيدي وبلد وهالي سيدنا نبديد كانوا هالي سيدي وبلد وهالي باتري ما إيه حاشا مايا قرنا مولي قرب بغاسة حتى عنيك كلها الله يقر بيكو شيء ما هي دامولا والله هلا أو هل بان أوريستا قر الثقيل كبير كي أديكو أوجات كينو ندحتاجن أننا أنتاجنا هاي بان هل وحساب تمينا هل أما أننا مركز يعني كسب الحين وحن كلنا أوجاتو رالي هاو أما ما أوجاتو قدبات نجا شلانيكي مسؤولية دي وإذن لنا هايو قرتي أن الساري وحي اللي السارات قادن يصير قولوا ساس وانجي الحين كيف رجل ما تابدي حدينا سمع رجل ما تابدي يا رجل ما هو ينتاس رجل ما هو غنا
أفرح اليوم بدل ما تصدق بس واتمنى والله بالله ما كقادنا وانا إيماننا إن شاء الله والله أنا أخذ هذا وهو حكومة السرية أنا كبر إيه أنا ما تاني يدين والله أنا أنا كمان ترى نقول شيء وقاس أمي مقشة أنا كهذا نقولنا هاي أون إيماننا مدحوينا كده ساد وما بتجينا وبتاتن deegaanka Soomaaliya xagga laga xukumo Quraan Mari Gorbaqsan Quraan Mari Gorbaqsan codsiga anaga waxaan u geysanaa dawladda dhexe ee federaalka in badan buu gurra u tagay in badan buu feerig ugaas in badan buu gurra u tagay madaxweynaha kidilka ya